أشرق النور المبين وأتى الهادي الأمين. هل لنا الكون ابتهاجا وازدهى حق ودين. أشرق النور المبين وأتى الهادي الأمين. هل لنا الكون ابتهاجا وازدهى حق ودين في إمام المرسلين. cibaado kastoo aynu samayno, hadday xaj tahay, hadday cumro tahay, hadday salaad tahay, hadday soon tahay, iyo hadday sadaqad tahay, hadday cibaado kale tahayba, waxaynu rajaynaynaa in Allah inaga aqbalo subxaanahu wa tacaala. laakiin shuruud ama asbaab ama waxyaabo bay culammadu tilmaamaan sababa in qofka cibaadada laga aqbalo. cibaadada waa wada samaynaa, laakiin kumaa cibaadadiisa in la aqbalay allah og subxaanahu wa tacaala. sidaa awgeed baa waxaa laga sheegaa salafkii saxaabadii rag ka mida, layta shacri man ilmaqbuulu fanuhniih waman ilmaxruumu fanucaziih. waxaa laga sheegaa caliy bn abi aalib inuu odhan jiray ee waa kuma qofka talow laga aqbalay camalka aynu tahniyadayne, waase kuma ka laga xaaraam yeelay in laga aqbalo aan tacziya aan u dhigne. ibnu mascuudna waxaa laga sheegi jiray inuu odhan jiray weertaa ku dhodhow waa ayuha almaqbuulu hanii'an lak ayuha almarduudu jabbara allahu musiibatak. ka cibaadaadka laga aqbalayow bogaadin baa kuu sugnaatay, ka camalkiisii la soo celiyayow musiibadaada allaha kuu kabo buu odhan jiray. taa macnaheedu waxa weeyaan camalka waynu wada samaynaynaa, laakiin qubuulku xagga alluu ku xidhan yihi. qofka mu'minkaana waxa ugu weyne uu ka fakeraa waxay weeyaan camalka yaridiisa maaha iyo badnidiisa, waa camalka qubuulkiisa. ilmo nebi aadam oo dadkii ugu horreeyey rabbi inooga qisoodo aabbahood dabadooda, markii ay qurbaanka geysteen midna waa laga aqbalay, midna lagama aqbalin. kii laga aqbalay ilaahay wuxuu ku tilmaamaya innamaa yataqabbalu allahu min almuttaqiin. ilaahay wuxuu wax ka aqbalaa kuwa alle ka cabsada. qubuulka waxa gaadha dadka mansilatu taqwa gaadhay ayaa gaadha. aakhiro aad bay u naxdin badantay inaad timaaddo adigoo khayr rajaynayey, laakiin lagu yidhaha waxaagii waxba kama jiraan. dad badan oo gaaladu u badantay ilaahay wuxuu leeyay waqadimnaa ilaa maa camiluu min camalin fajacalnaahu habaa'an manhuura. waxaanu u soo horumarinay buu ilaahay leeyay wixii shaqo ay shaqaysteen waxaananu ka yeellaa maxay habaa'an manhuura, boodh la saydhiyey ama siiga la saydhiyey. qof camal sameeyo islaha waa la aqbalay oo aakhire markuu tago wixii uu rajaynayay waxaan ahayni ka soo horbaxaan. ilaahay baa qur-aanka wuxuu ku leeyay qul hal nunabbi'ukum bilakhsariina acmaala. ma idiin sheegaa kuwa camalkoodu hoogay khasaaray aladiina dalla sacyuhum fi lxayaati اddunya wahum yaxsabuuna annahum yuxsinuuna sunca. waa kuwa adduunka intay joogeenba camalkoodu lumo aan la aqbalin, iyagu se moodayay in acmaasha laga aqbalay. idan ayuha alaxiba, ilaahay wuxuu leeyahy waman araada alaakhira wasacaa laha sacyaha wa huwa mu'min faulaa'ika kaana sacyuhum mashkuura. ninka aakhiro doonaya acmaashiisa ibtiqaa'i wajhi illaahi ku doonaya oo aakhiro u shaqaystay wasacaa laha sacyaha, camalka aakhiro la aqbalana la yimi isagoo mu'mina, faulaa'ika kaana sacyuhum mashkuura. kuwaa sacyigoodu waa mashkuur ay maqbuul, waa mid looga mahadnaqo, waa mid alle subxaanahu wa tacaala ka abaalmariyo. haddaba ayuha alaxiba, ilaahay subxaanahu wa tacaala waa haniyun can acmaalina. marka hore waxaynu shaqaynayno o dhan ilaahay hani buu ka yihi, laakiin waxa aynu samaynayno ilaahay wuxuu leeyahy waan idinka shukri naqaya, waa idinka abaal marinaya. ilaahayna wuxuu ina leeyahy waman yashkur fainamaa yashkuru linafsi. ninka alle subxaanaه wa tacaala u mahadnaqee طaacadiisa sidii ula yimaada waa
camalkaa abaalmarkeeda adaa iskale baa ilaahay leeyahy waman kafar fa ina allaha haniyun xamiid ciddiisa ka gaalowda ilaahay hani buu ka yahy waana ka maarmaa in takfuruu fa ina allaha haniyun cankum walaa yardaa licibaadihi اlkufr wain tashkuruu yardahu lakum haddaa gaalowdaan ama ilaahay nicmadiisa dafirtaan ilaahay hani buu idinka yahy baa layidhi isla markaana idinlama jecla gaalnimada haddaa shukri naqdaanna yardahu lakum raalluu idinka noqonaya haddaba qofka mu'minka ah waxaa saaran camalka intaanu samayn iyo markuu ku dhex jiro iyo markuu dhammeeyaba waxa uu ka warwaraa waxa weeyaan camalkani ma yahay mid alleh talow raalli ka iyo u aqbalaya waa isagoo daaco ah ayaad haddana isweydiinaysaa ilaahay subxaanaه wa tacaala ma kaa aqbalaya dadkii mu'miniinta ahay mushfiqiin waxay ka ahayeen camalkooda ilaahay qur-aanka wuxuu leeyay wاladiina yu'tuuna maa aatow waquluubuhum wajila annahum ilىa rabbihim raajicuun wاladiina yu'tuun ay yucطuun kuwa bixinaya baa la yidhi maa aatow waxay bixinayaan ee sadaqa ah ee acmaal saalixa ah waxay wanaag la imanayaan kuwa la yimi waquluubuhum wajila iyadoo qalbiyadoodu ay cabsanayaan baa ilaahay yidhi wuxuu samaynayaana waa taaco haddana cabsi baa ku jirto cabsidu xaggay ka timi talow rabbi ma kaa aqbali buu ka cabsanaya caaisha radia allahu canha wa can abiha ayaa waxay tidhi ilaahay rasuulkiisa waxay weydiisaa aayadatan ilaahay rasuulkiisa ubay tidhi aayaddan ilaahay leeyay wاladiina yu'tuuna maa aatow waquluubuhum wajilatun annahum ilىa rabbihim raajicuun ahum yashrabuuna alkhamra wayasriquun kuwa kani ma kuwa khamrigana caba ee tuugadana sameeya oo markaa ninkii xumuu samaynaya wuxuu isleeyay ta waxan yar ma laga aqbali doonaa u la yimi wuxuu nebigu ku yidhi laa yaa binta sidiiq kuwaa maaha kuwa laga hadlaya walaakinahum aladiina yasuumuun wayusalluun wayataصadaquun wahum yakhaafuuna an laa yuqbala minhum nebigu wuxuu yidhi calayhi الsalaaةu wasalaam waa kuwa soomaya oo tukanaya oo sadaqo la baxaya oo welina cabsiyi ku jirto ilaahay ma idinka aqbali doono ulaa'ika yusaaricuuna fi اlkhayraat baa ilaahay yidhi marka kuwa cabsidaa qaba waa kuwa khayrka u degdegaya baa rabbi leeyahy subxaanaه wa tacaala xadiidka tirmidiya ibni maaja baa warinaya sheekh ilalbaanina saxiix buu ku tilmaamaya haddaba ayuha alaxiba makriga ilaahay ma aaminaan dul khasaaray mooyaane saxaabadii isku hallayn may qabin iyagoo camalkaa samaynaya tirada badan labay haddana cabsanayeen innaga laakiin waxaad moodaa qofkii waxoogaa dadka ka yara salaad bata ama ka gadisnaada inuu is idhaahdo adugu ahlu jannaa waaweyn baad ka mid tahay aduu kollay dee dadkan oo dhan waad ka fiicanto ahlu saxwahaa tahay ama qoladii diinta u shaqaynaysay baa tahay inuu iska dhaadhiciyo nacam waa fiicantay in diinta loo shaqeeyo waa fiicantay in salaad la tuko waa fiicantay laakiin qofka muslimka ah afa aaminuu makra allahi falaa ya'manu makra allahi ila alqowmu alkhaasiruun baa ilahay ma ilaahay makrigiisa ay aamineen ilaahay ma aamino makrigiisa duul khasaaray mooyaane nebi ibraahim oo nebiya oo rasuula oo camal samaynaya ayaa haddana wuxuu leeyahy waladii aطmacu an yakfira lii khatii'atii yowma diin ilaahay baan hunguraynayaa buu leeyahy inuu dembigayga dhaafo maalinta qiyaama waa طamac waa hunguri yacni anigu wixii aan awoodayay waan sameeyey welina ilaahay baan ka rajo qabaa buu leeyahy inuu alle subxaanaه wa tacaala iga aqbalo isagoo nebi ibraahima ayuu ilaahay baryay ilahay inuu shirkiga ka fogeeyo wajnubnii wabaniya an nacbud alasnaam idan ducada qofka mu'minkii marnaba kama maarno inaad ilaahay ka magan gasho gaalnimo munaafiqnimo riyaa iyo sumca iyo istusid inaad ilaahay weydiisato inuu acmaasha ka aqbalo sadaqa iyo soon iyo salaad iyo waxaad samayso qur-aanku dadka saalixiintaa markuu ka warramayo wuxuu ka warramayaa iyagoo cibaadaad cajab qaba la imanayay haddana ku kabayay ducada wاladiina yabiituuna lirabbihim sujada waqiyaama wacibaad الraxmaani aladiina yamshuuna calى اlardi hawnan marka laga soo bilaabo ilaahay cibaad الraxmaan buu ka warrama sifaat ay leeyihiin oo wada wanaagsan baa ayuu ka warrama ilahay wuxuu ku tilmaamaya sifaatkooda inuu ka mid yahay wاladiina yabiituuna lirabbihim sujada kuwa habeenkii habeensanaya iyagoo rabbigood u sujuudsan oo qaa'ima
habeenkoodu waa salaad ayay ku dhammaystaan haddana ilaahay wuxuu raaciyey waaladiina yaquuluuna rabbana asrif cannaa cadaaba jahannam waa kuwa ku ducaysanaya barya ilahu cadaabka jahannamana weydaari acmaashiisaas saalixa ah baryaa daba socota aman huwa qaanitun anaa'a alleyli saajidan waqaa'ima yaxdaru alaakhira wayarjuu raxmata rabbi miyay simayin baa ilaahay leeyahy ku habeenoo dhan taagan oo sujuudsan oo qunuud ku jira oo alle baryaya haddana baa ilaahay leeyahy yaxdaru alaakhira aakhiru haddana ka cabsi qabaa weli wayarjuu raxmata rabbi ilaahay naxariistiisana hunguri baa ka haya wuu rajaynaya yacni camalkiisoo qura kuma kaaftoomine waxa uu la socda warwarkan iyo cabsida tan qofka muslimkaa waxa saaran markaas bay culammadu yidhaahdaan hadduu qofku sidaa u fakero oo aanu garanaynin daacaadkiisa inta la aqbalaya inta kale acmaasha uu sameeyo dhammaanteed way la yar tahay qofka aan waxaasi ogaynina wuxuu sameeyey way la tiro badan yihin dabeetana waxaa ku dhaca alcujb iyo alistigtaa way la badataa wuxuu is leeyahay adigu dee wax badan baad samaysaa shaqo badan baad haysaa wuxuu moodaa inuu dadka kale wax dheer yahay saa daraaddeed baa qofka muslimkaa waxaa laga rabaa inuu fii janbi illaahi uu yidhaahdo acmaashaan ilaahay geystay waa wax yar marka loo eego ilahay wuxuu nimco ku siiyey ilahay wuxuu nimco ku siiyey marka loo eego waa wax yar haddii layna yidhaahdo oxygeentaynu neefsanaa laydinka iibinaya ka warran haddii lagu yidhahdo wardi baa lagaaga iibinaya subxaan allah dee maantii o dhan shaqo kale maad qabateen subxana allah oo intaad huruddo marka ayaa kaa iibinaya marka ila markaad seexatana subxaan allah odhan kari maysay mujarad haddii lagu yidhahdo subxaan allah bes siiso idan qofka muslimka ah ilaahay wuxuu nebi maxamed u tilmaamaya walaa tamnun tastaktir alxasan albasri baa wuxuu leeyahy laa tamnun bicamalik calaa rabbik tastaktiru ha sheegsheegan camalkaaga adigoo moodaya inuu wax badan yahay ilaahay ha u sheegsheegan baa la leeyahy kan baanu samaynay waxan baanu qaba ilaahay ha u sheegsheegan baa la leeyahy waxaad la timi waa wax yarun mar haddii fii janbi illaahi loo eego ilaahay qofka garanaya ee weynidiisa garanaya ee wuxuu xaq inoogu leeyahay garanaya wuxuu sameeyey way la yartay intay doontaba ha leekaato intay doontaba ha leekaatee haddaba ayuha alaxiba ilaahay waxaan ka baryaynaa subxaana wa tacaala inuu acmaasha saalixa inaga aqbalo waxaynu dartii u qabanayno in rabbi subxaana wa tacaala inaga aqbalo rabbi waa kariimun xayiyun ilaahay wuxuu isku tilmaamay mid deeq badan oo xishood badan inuu yahay oo addoon gacmaha u soo taagay aan ku celinin ee ka aqbala haddaynu ilaahay baryadiisa badinno rabbi ariiqa saxaa wayna tusaya aan ilaahay barino subxaana wa tacaala dadaalkana aan badsanno وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين